kulantuucan oo wanaagsan idin lahaantiinba kuna soo dhowaada janalka maawalada iyo murtida ee garaad koriye ma og tahay inaanad xoog iyo murqo waaweyn u baahnayn saad cadowgaaga uga guulaysato haddii tan aanad rumaysnayn ku soo dhowow garaad koriye aanse ku bilaabo wax kasta waxay ka bilaabeen halkan iyo aroor hore xilli uu shaqadiisu ku howlanaa harqaanle ama dawaarlahanin magaciisa yaxye u bixin karno waxau daaqadda ka halacsaday gabadh da'yar oo iibinaysa jallaatooyin iyo macmacaanka rootiga la marsado baahi daran ayuu qabayo waa u yeedhay waxau ku yidhi halkan kaalay igana iibi aniga mid dhowr noocoo kala duwan ayay miiska u saartay mid ka mida ayuu xushay kaasoo dookhiisa ahaa kadibna rooti uu haystay ayuu marsaday wax waliba waxay hayeen sidii uu doonayey waxauna yidhi tan haddii aan cuno waxaan helayaa tamar iyo awoodan shaqadayda ku sii wado balse waxuu go'aansaday intuusan rootida cunin ka hor inuu marka hore shaqada uu gacanta ku hayo dhammaystiro wax yar kadibna duqsi soo raacay macaanka cunadiisa ayaa ku soo ururay wuuse u digay balse digniinta kuma tegin ee isagoo tiro badan ayuu mar kale soo laabtay markana inta uu xanaaqay harqaanluhu ayuu ku dhuftay mare u hayey waxse la yaab leh ayaa dhacay oo hal mar ayuu arkay 7 ku dhintay dharbaaxadii uu ku dhuftay waxayna tan ula muuqatay mucjiso iyo lama arkaan waxau yidhi tan waa taariikh aan dunida hare uga dhicin harena loo arag waa inaan adduunka ku wargeliyaa kadibna suun weyn ayuu waxau ku qortay 7dii aan ku dilay dharbaaxada dhexda ayuu ku xidhay wuxuuna go'aan ku gaadhay inuu taariikhdiisa dunida oo dhan ku wargeliyo si mucjisada tan loo ogaado waxau kiish ku ritay burcad ingegay shimbir uu soo qabtay kadibna tuurta intuu ku qaatay ayuu safar dheer u dhaqaaqay muddo markuu sii socday ayuu dhul cidla ah kula kulmay dilaa xoog weyn muruqyo daran leh waxau ku yidhi halkan ayaad adigu iska fadhidaa anna adduunkao dhan ayaan doonayaa inaan soo tuso mucjisada aan ahay waad raaci kartaa intii halkan aad kelida ayuu ururi lahayd waxau ku yidhi waxaan kuu sheegayaa inaad iska socoto inta aanad dhiman ima garanaysid qofkaan ahay isma howlin harqaanlahan ama dawaarlahan tamarta daran leh waxa uu tusay suunkiisa ay ku xardhan tahay 7 ayaan hal dharbaaxo ku wada dilay aad ayuu yaabay dilaagan xoogga weyn lee kelidii cidlada fadhiyey wuxuuna go'aan ku gaadhay bal inay tani dhab tahay iyo in kale inuu tijaabiyo waxuu ku yidhi haddii aad run sheegayso anigu dhagaxan qallalan ayaan biyo ka toojin karaa ee bal aadna taa samee haddii dhabtaa tahay kadibna dilaagii xoogga weynaa ayaa intuu dhagax soo qaatay ka toojiyey biyo kadibna waxau ku yidhi adna samee ismaba howlin dawaarlahan iyo waxau gacanta geliyey kiishkiisii wuxuuna ka soo saaray burcad ingegay uu haystay kadibna intuu toojiyey ayuu ka dareeriyey subag badan oo ka badan biyihii dhagaxa uu ka keenay ninkan dilaaga ahi waxau yidhi keenney awood badan waad arkaysaa in biyaha dhagaxaygaan ka keenay ay ka badan yihiin kuwaad adigu ka keentay wuu yaabay dilaagan murqaha iyo xoogga weyn leh kadibna dhagaxa dhulka yaallay intuu soo qaaday ayuu samada u ganay wuxuuna ku dhoweeyey daruuraha markii dambena dhulka ayuu ku soo dhacay waxau ku yidhi haddii aadan xoog la tahay sidan oo kale samee oo dhagaxan samada u gan uu halkan gaadhsii harqaanlahani waxau ku yidhi tani waxba maaha adigu dhagaxaa tuurtay halku doonaba ha gaadhe markii dambe dhulka ayuu ku soo dhacay aniguse dhagaxa aan ganaa weligii dib uma soo noqon doono ee bal eeg intuu mar kale kiishkiisa gacanta geliyey ayuu shimbirtii uu hare u soo qabsaday kala baxay hawada ayuu u ganay shimbirtiina hare ayayba ka sii duushay intay xornimo dareentay oo dibna uma soo laaban wuxuuna yidhi keenee mucjiso leh dilaagii xoogga weynaa ayaa yaabay balse weli ma qancin waxau yidhi hadda waxaan doonaya inaan murqahaaga iyo awooddaada ogaado ee waxaa halkan yaalla geed aan jaray oo culus
waad la qaadi kartaa haddaad xoog hayso. Harqaanlihii oo maskaxdiisa adeegsanaya ayaa ku yidhi geedku waa laba qaybood, dhanka caleenta leh ayaa culays badan, dhankan gaaban ee jirriduna waa fududahay, adigu dhinaca gaaban ee jirridda qaad, ana dhanka caleenta leh ii daa buu ku yidhi dawaarlihii. kadibna dilaagii xoogga weynaa ayaa tuurta u ritay jirridda culayska badnayd. harqaanlihii aan awoodda lahayna ismaba dhibin ee qaybta sare ee caleemaha geedka ayuuba iska fuulay. ma ogase in ninkan dilaagii isagu uu sido geedka iyo ninkuu la tartamayay labadaba. dhidid iyo daal ayaa ka dhammaaday. markay naftu qabatayna jirriddii ayuu tuuray. dawaarlihiina intuu ka booday geedkii ayuu yidhi waa daashay, anigu gacan keliya ayaan ku siday geedka intaa leeg. waa uu yaaban yahay dilaaga xoogga leh, mucjisada ka dambaysa ninkan tamarta yar leh. kadibna intuu geed midha ka baxeen usoo qabtay ayuu ku yidhi midhahan ka gooso. wuxuu isku dayay dawaarlihii inuu midhihii cuno, isna wuu sii daayey. kadibna samada ayuu u duulay oo laantii yareed ayaa cirka ula baxday. meel fog ayuu ku dhacay, isagoo lugaynaya ayuu ku soo laabtay. waxau ku yidhi maxay tahay xoogga aad sheeganaysaa? haddiiba laanta yare fudud aad xejin kari weyday ead midhaha ka goosanaysaa ee markaan kuu sii daayey ay samada kugu tuurtay. waxau yidhi dawaarluhu, ma waxaad moodaysa in laantan fudude aniga ay tuurtay? waxaan arkay ugaarsato doonaysa inay i ganto, kadibna geedka ayaan deg deg uga booday. haddiise aad aniga ila mid tahay cargeedkan sidaan uga booday uga dulbood. wuxuu isku dayey dilaagii xoogga weynaa inuu geedka ka boodo, balse bartamaha geedka ayuu ku dhacay. waxau yidhi niyu mucjiso ayaa tahay, aniga iga yaabisay. waxaan doonayaa inaan caawa ku martigeliyo, waad nala seexataan iyo saaxiibaday. kadibna hare ayuu ka soo raacay harqaanlihii ninkii martigeliyey ee dilaaga xoogga weyn ahaa. dhagar ayuu u maleegay. waxuu keenay laba god oo mid ka mida laba saaxiibadii ay dab ku kulaalayaan. waxuu ku yidhi sariirta weyn adiga ayaa la iska seexo. harqaanluhu wuxuu ahaa ku caqli badanee markiiba wuu fahmay in meesha tani ay shirqool tahay. sariirtiina kuma wada seexan ee qayb koona ah ayuu kaga seexday. habeenbadhkii markii uu gamay ayay dilaagii xoogga weynaa seef soo qaatay. kadibna sariirtii ayuu bartanka kaga kala gooyey. wuxuuna u qabay inuu sidaa ku khaarajiyey oo uu ku dilay dawaarlihii mucjisada ahaa. isagii iyo saaxiibadii oo dabaaldegayana habeenbadhkii ayay duurka midha u doonteen. waxse la yaab leh, markii subaxu waagu baryey ayaa iyagoo lugaynaya waxa si lama filaana uga soo horbaxay dawaarlihii ay moodayeen inay xalay dileen. dhammaantoodna orod ayay isdhigan iyagoo lafahooda u cabsanaya. markay lafahooda u yaaceen ayuu isaga tegay dawaarlihii maskaxda badnaa. hare ayuu isaga sii socday isagoo doonaya inuu adduunka u soo bandhigo mucjisadiisa uu la yaabay ee ah inuu hal dhirbaaxo toddoba ku dilay. muddo markuu soconayey ayuu wuxuu ku soo baxay beer weyn oo boqortooyo ballaadhani ku taalo. qasri boqor ka dhex dhisan yahay. wuu daalanaaye beertii ayuu iska dhex seexday. markii waagu baryey ayaa shaqaalihii beertu soo dhex mareen. kadibna waxay akhriyeen waxa suunka dhexdiisa yaalla ugu xidhan. geesiga 7 ku dilay hal dhirbaaxo. way naxeen oo ay tacajabeen. kadibna boqorkii ayay u tegeen boqortooyada ka talinayay. wuxuuna ku yidhi waxaa laga yaabaa inuu yahay mid anfaca, waanan u baahnahay. kadibna mid shaqaalihiisa ka mida ayuu u diray. wuxuu ku yidhi soo toosi oo ii keen, una sheegin boqorku doonayo inuu u shaqeeyo. dawaarlihii ayaa toosay. wuxuu yidhi tani dhab ahaantii waa taan u baahnaa. diyaar ayaan u ahay inaan boqorka iyo boqortooyadaba u adeego. kadibna hare ayaa laga soo kaxeeyey. harqaanle ama dawaarle iyo boqorkii ayaa la isbaray. barasho kadibna boqorku waxa uu ku yidhi hadda laga bilaabo waxaad ka mid noqonaysaa ilaaladayda boqortooyada ilaalisa. balse ilaaladii kale ee boqorku lahaa ayaa ka hinaastay ninkan cusub ee shaqada loo keenay. waxay ku yidhaahdeen annagu boqolaal sano ku ilaalinaynay, miyaad nagu doorsanaysaa ninkan cusub ee aad maanta baratay? tanina warwar culus ayay ku beertay boqorkii. waxa uu yidhi maya, ma dhici karto. qof aanan aqoon kuma doorsan karo shaqaalahaygaan ku kalsoonaa ee sanooyinka tirada badan la ii ilaalinayay. kadibna xujo daran ayuu ku xidho waa u yeedhay. wuxuu idhi halkan boqortooyada iyada waxaa ku nool 2 nin oo xoog waaweyn oo dilaa ah. haddii labadaa aad disho oo boqortooyada aad dhaafiso waxaan ku siinayaa gabadheedo waan kuu guurinayaa. weliba boqortooyadayda iyo maalkaygana qayb ayaan ku siinayaa. si aad nimanka uga adkaatana 100 faras oo hubaysan ayaan kugu darayaa.
wuxuu yidhi waa si fiican waan ka soo baxayaa xujada aad ii dirtay umana baahni 100 askari ee aad igu dirayso waxaad ogaataa nin 7 ku dilay hal dhirbaaxo inuusan 2 qof u daahayn una baahnayn inuu 100 askari u kaxaysto balse kama yeelin boqorkii waxa uu weli ku daray ilaalo markuu duurka marayo ayuu ilaaladii fardaha wadatay ku yidhi halkan iska jooga anigu idinka idiima baahni wuxuu arkay labadii dilay ee xoogga waaweynaa oo geed hoos hurdo oo khuurinaya khuurada ka baxaysana geedku la gariirayo markiiba maskaxdiisa ayuu adeegsaday dawaarlaha caqliga badan leh dhagxaan ayuu urursaday geedka ay ku tiirsanaayeen ayuu dhakada uga baxay kolba mid ka mida ayuu dusha ka soo ganay oo dhagax ku dhuftay kuu ku dhacaaba kan kale ayuu qabsadaa uu yidhaahda maxaad ii dilaysaa isna waxau ku yidhaahdaa anigu kuma dilino waad riyoonaysaa muddo kadib ayuu haddana kan kale dhagax ku dhuftaa isna kii kale ayuu qabsadaa wuxuu ku yidhahdaa maxaad ii shiidaysaa isna wuxuu yidhahdaa kuma shiidin ee waad qarwaysaa muddo ayay murmayeen markay xoogaa wada hadlaanba hurdo daran ayaa haysay dub ayay u gameeyeen markay gamaanna dhagax kale ayuu madaxa kaga dhufanayey sidaas ayayna maantoo dhan ku murmayeen mid waliba midda kale ayuu qabsanayey markii dambena dhagaxii ugu darnaaya uu haystay ayuu dusha kaga soo daayey mid ka mida labadan dilaa ayuuna labxada kaga dhuftay kii ayaa si baan u xanaaqay wuxuu yidhi waxa tanuma dul qaadan kara doqonyow kadibna saaxiibkii ayuu geed ku dhuftay isna dub ayuu u riixay oo geed kale ayuu ku dhuftay way isku xanaaqeen oo labadii dilaaya xoogga waaweynaa jiradaha geedad waaweyn ayay isku jafteen wayna isla dhaceen ilaa labadoodiiba ay aakhirka dhinteen waa uu yimi wuxuu ku yidhi ilaaladii lagu soo diray uu bannaanka sii joojiyey nimankii dilay iyana ma hubaysan ee waxay dooneen bal inay indhahooda ku soo arkaan markay tegeenna waxay arkeen labadii dilaa oo meyd ah oo jifa waxayse ka argagaxeen jiradaha waaweyn ee u jafay oo la dhacay waxayna ula muuqdeen waxaan la arki karin markii uu soo noqdayna boqorku uu ka warwareegay inuu markiiba ballanqaadka uu la galay ninkan ku wareejiya dawaarla'a waxau ku yidhi arrin kale ayaa dhiman waxaa halkan beerta qasriga boqortooyada ku dhex taalla ku nool wiil weyn oo dilaa ah taasoo dad iyo dunyaba laynaysa waxaan doonayaa inaad soo qabato markaasoo keliya ayaan ku siin karaa gabadhayda iyo qayb ka mid a hantida boqortooyada aan maamulo weliba waxaan kugu darayaa ilaalo hubaysan oo ku caawisa isla ballantan kale ayuu ninkii ka soo baxay waa dawaarlihii sidii hore oo kale markuu duurka sii socda ayuu iska reebay ilaaladii uu ku daray waxauna yidhi uma baahnidin wax yidhi kadibna wuxuu la kulmay wiishii caddaydu ahtu waxay aragtaba dishaa way soo eriyatay isna waa uu ka cararay geed ayuu isugu beegay markii doonaysay inay geesaha la heshan intuu weydaartay ayay uga baxay kadibna geedkii ayay labada gees la gashay wayna rafatay ilaa labada geesba ku libdheen oy dhaqaaqi kari weyday markuu arkay inaysan bixi karayn ayuu xadhiggii u haystay soo qaaday oo uu qoorta kaga xidhay faashuu watina waxa uu kaga gooyey labadii gees ee jirridda geedka la gashay isagoo hogaaminaya ayuu boqorka u keenay balse boqorku haddana mar labaad ayuu ka goos adeegay inuu ku wareejiyo ballanqaadka uu la galay waxuu yidhi waxaa jira doofaar kale oo dilaa ah kaasoo beertayda qarribay waxaan doonayaa kaana inaad soo qabato waxaan weliba kugu darayaa 2 ugaadhsato markuu duurka marayo ayuu mar kale iska reebay ugaadhsatadii doofaarkii ayuu kaymo kula kulmay kadibna waa uu ka soo cararay sidii hore oo kale markuu muddo soo eryanayey ayuu u soo galay qol guri meel ka dhisan daaqadda ayuu uga booday doofaarkiina qolkii ayuu soo galay isna dhanka kale intuu ka soo wareegay markuu arkay inuu ku jiro ayuu ku xidhay ugaadhsatadii ayaa timi waxay arkeen in doofaarkii dilaagahana la xareeyey oo uu xidhay kadibna boqorkii ayuu ku soo laabtay boqorka oo ka yaaban sida xujo kasta uu ninkan ku xidhay uu u furfuray oo uga soo baxay ayaa isagoo aan jeclaysan si caalwaaya gabadhiisii ugu wareejiyey xaflad iyo aroos ayaanu u dhigay qayb ka mida boqortooyadiisana waa uu siiyey muddo waxay ku wada noolayeen qasriga boqortooyada balse beleba waa tan dambaysa ee habeenkii dambe ayuu harqaanlihii riyooday isagoo xaaskiisa ag jiifa waxa uu ka sheekeeyey sirtiisii hore iyo sida uu ahaa dawaarle miskiina gabadhuu boqorku dhalay ayaa aabbaheed u sheegtay wixii ay maqashay waxay ku jiri abba ninkani ma hageesiye waa dawaarle miskiina iima qalmo
boqorkina ayuu xanaaqay. wuxuu yidhi caawa markuu seexdo ayaan laba ka mida shaqaalaha boqortooyada u soo dirayaa, kadibna waan xidhxidhaynaa, markab ayaynu saaraynaa, badweynta ayaynu ku tuuraynaa. mid ka mida shaqaalaha boqortooyada oo dawaarlaha la saaxiibay ayaa maqlay dhagartii loo dhigayay dawaarlaha, kadibna waa u sheegay oo subaxii ayuu ku wargeliyey shirqoolka caawa lala maagan yahay. harqaanlahan cajiibka ahna habeenkii ayaa u fikiray si uu uga guulaysto shirqoolka boqorku la maagan yahay. markii ay seexdeen ayuu iska dhigay inuu riyoonayo isagoo soo jeeda, wuxuuna bilaabay wuxuu ku riyoon jiroo kale. markay maqashay xaaskiisu ayay toostay, kadibna waxay ugu yeedheen nimankii abbaheedu diyaariyey si ay u xidhaan, balse si ula kaca ayuu riyadii u beddelay. wuxuu yidhi ii diyaari dharkayga, shaarka iyo surwaalkana isugu kaya xidh. waxaan ahay geesi aan la hoolin karin, waxaan ahay ninka hal dharbaaxa 7 ku dilay, waxaan ahay ninka ka guulaystay 2 dilaa ee waaweyn, waxaan ahay ninka soo qabtay wiishii dadcunkahayd, doofaarkiina xareeyey. ma dilaagayga noocaas oo kale ayay cabsi gelin karaan shaqaale kajada boqortooyada ka shaqeeya? waa maya, cidina aniga ima loodin karto ee dharka ii diyaariya. markay riyadiisa maqleenna waxa baxsaday oo lafahooda la cararay shaqaalihii loo soo diray inay qabtaan. waxaana sidaas ugu suura gashay dawaarlihii caqliga badnaa inuu noqdo boqorka ka taliya qasriga boqortooyadan. tan iyo maantana haddaysan isaga iyo xaaskiisu dhiman, waxay ku nool yihiin qasriga boqortooyada ee uu maskaxda iyo xeeladda ku hantiyey. waxaan sheekada tanna ka baranaynaa inaanad muruq iyo xoog weyn u baahnayn sidaad uga guulaysato cadowgaaga, ee caqliga wanaagsani yahay hubka ugu wanaagsan ee aad noloshaada, sharaftaada iyo karaamadaada aad ku difaaci karto. intaan ku kulmayno sheekada tan ku xigta, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. waqtigu dhigaha idiin wacnaado.